أنا مقعي وسلطان محمد أحمد ورسان قريري هذا الشيء كان كسر سنة أنه بلا أهل كهو استقالي فنمط وبعضنا مقر هاي وأنا رجينا منك علماء iyo ogaasha ku jirta oo ku galay maxaan ku raay ilaahay dartiis in ilaahay ajarna ka siiyo una fududeeyo arrintaas insha Allah hawshan goormay soo jiitamaysay culimo u diinka iyo waxgaradkuna goormay bilaabeen in ummadaas ay kala dhaxgalaan wallahi niyo arrintaan ilaa hadda laba sano ku dhawaad soo jiitamaysay hadda wax ka soo dhamaadana ilaahay xaqiisa ka dhamaadaan waana lagu dhex jiray intaas oo hadda waxa weeye meesha ugu dambeysay maraysa marka hadda waxa la isla qaatay in la nabdo oo arrintaas maxaan ku yiraahdaa wanaag lagu dabaalo oo dadka islaamka ah oo isku maranaya aan lagu fiirsan waxa hadda ay ku jiraan sidaas lagu balamay waxa kale oo jirta hadii xataa qof islaam qof hadda u hamuun qaba dhiiggiisa inuu baabsana waxaan leenahay ka joogaan leenahay insha Allah labada dhinacba marka waana soo dhaweynaa culimada iyo uqaasha hawsha ay wadaan culimada iyo uqaasha meesha ma tageen oo ma kala dhaxgaleen waa tageen waana tagaan maalin walba haddana waa jiraan haddana waxaa loo balansan yahay labadii beelood inay fariistaan wixii dhexdooda adigu ku jiro oo dhibana la dhameeyo culimada iyo uqaasha goormay u suura gashay in halka ay tagaan adigu wiigaanba waa socdeen iyo wiigii ku xigayba marka culimadu marnaba kanada ay joogsan iyo nimanka inta caqliga saaxiibka ah inta kama joogsan inta waa wadeen hawsha ma garta waa gartay marka goorme lisleeyahay arrinkan waa lasoo afjaraya adigu wixii sabti loo gaaro laga yaabaa in la fariisto haddii ay ugu sii dambaysanay siniin iyo wixii loo gaaro arrintaa waa la isku afkartay in la dhameeyo meeshii ilaahay ugu talagalay in la gaarsiiyo waaya marka maxaa ugu talagasheen waxgaradkiinan dadkan dagaalamay oo dagaalkooda hadda uusan soo bilaaban oo marar badan halkaa dagaalku ka dhacay xitaa maamulka Jubbaland laftirkooda isku dayeen inay kala dhexgalaan balse dagaalku halkii uu kasii socday walaahi culimada iyo odayaasha oo kuma yara wixii ilaahay dilayana anagu ma celin karno insha Allah laakiin hadda tii u dambeysay lagu jiraa inaan wax damba dhiman maxaan ku yiraahdaa oo dagaalka ku dhiman oo inta laba reerood haddana dib dambe dagaal uga qarxo marka ilaahay idinka waxaan rajaynayaa arrintaas inay ku dhamaato wanaag maamulka Jubbaland gacan intee lag ay ku leeyihiin daminta colaada wallahi way tageen baa la yiri meelaha waxaan ku yiraahdaa laakiin kolley ma filaayo sidii laga rabay inay u galeen waayo ayaga wax ciidan oo buuxa haysta ummadana kala dhex gali kara laakiin hadda waxa orodka ugu badan ku jira waa culimada iyo inta caqliga saaxiibka u ah iyo waxgaradka weeye wayna ku guuleysteen in hadda la damiyo arrintaas dawladda federaalka laftirkeeda kaalin intee leeg ay kaga jirtaa dadaalada dib u heshiisiinta dawladii wadanka madaxda ka ahayd weeye horena mar labaad iyo mar saddexaadna waa ugu baaqnay inay wax ka qabato arrintaas intii ay ka gaari kartana kolley hadda baaqyana way jirtay warna way ka soo saaraysaa kolley saacadaha soo socda